magaalada Barawe magaalo ku taalo xeebaha koonfureed ee Soomaaliya balse leh raadad taariikheed oo dhaafaya qarnigii 10aad kana mid ah magaalooyinka ugu qadiimsan Soomaaliya. qarnigii 10aad ilaa iyo maanta Barawe waxay ahayd xarun ku suntan ilbaxnimo, ganacsi iyo mid diimeed, iyadoo dadkeedu ay ahaayeen dad aqoon faneed iyo suugaanba leh. dhanka kalena waxaa laga dhoofin jiray badeecooyin qiimo leh oo Afrika iyo Aasiya isaga gooshi jiray. Barawe waxay lahayd dhaqan hodan ah, luqad gaar ah iyo dad jecel nabadda. waxay ahayd halkii ay ka burqan jirtay iftiinka diinta iyo cilmiga, iyadoo jiilba jiilkii ka dambeeyey ay iska dhexlayeen. markaad maqasho magaca Barawe waxaad u baahan tahay inaad dib ugu laabato taariikhda si aad u fahanto cidda aynu nahay iyo dhaxalka aynu ka sidanno ilbaxnimooyinkii hore. magaciigu waa Cabdiweli Macalin Maalto, halkanina waa Hogan 24 Media. haddaba haddii aad u aragteen muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iidayso, like saar si aan u ogaano tirada danaynaysa. haddii ay tahay markii kuugu horreysay aad soo booqato channelkeena, subscribe saar si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelino. share dheh si uu u gaaro muuqaalkan asxaabta jecel. magaalada Barawe oo ku taalla xeebta koonfureed ee Soomaaliya waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu taariikhda dheer geeska Afrika. waxay ahayd xarun ku caan baxday ilbaxnimo, ganacsi iyo diinta Islaamka muddo qarniyo ah. waxayna door muuqda ka ciyaartay isku xirka Afrika, Carabta iyo Bariga Aasiya. Barawe waxay caan ku ahayd dhismooyinkeedii taariikhiga ahaa, suugaanta afkeeda gaarka ah ee barwaaniga iyo dhaqanka hodanka ah ee ay dadkeedu lahaayeen. qarnigii 10aad ilaa iyo qarnigii 13aad Barawe waxay ahayd magaalo madax u ah dad si wanaagsan u abaabulan, kuna caan baxay ilbaxnimo, quruxda dhismayaasha iyo xirfado ay ka mid yihiin harqaanka, dhoobo samaynta iyo farshaxanka. Barawe waxay ahayd dekad istiraatiiji ah oo muhiim u ahayd marin u socodka badeecadaha sida xawaashka, waxyaabaha nacnaca laga sameeyo, dhuxusha iyo dharka. ganacsato ka kala yimid Carabta, Farisiyiinta, Hindiya iyo Shiinaha ayaa Barawe uga dhoofin jiray ama uga soo degi jiray badeecooyin kala duwan. waxay ahayd xarun muhiim u ah Islaamiga, waxaana ka soo baxay culimo magac leh oo door weyn ku lahaa faafinta diinta Islaamka Bariga Afrika, iyagoo dhisay masaajidyo waaweyn, madaariso iyo kutubta diinta ee qadiimiga ah. markii ay bilowdeen damacyadii gumaysiga reer Yurub qarnigii 19aad, Barawe waxay gashay waaye adag. gumaysigii Talyaaniga ayaa si xoog ah ugu faafay koonfurta Soomaaliya, iyagoo doonayay inay gacanta ku dhigaan marin biyoodka istiraatiijiga ah ee magaalada iyo ganacsiyadii hodanka ahaa. sanadkii 1896 Talyaanigu wuxuu si rasmi ah u qabsaday Barawe, wuxuuna magaalada ka dhigay xarun maamul u gaar ah. inkastoo uu keenay wadooyin, xarumo dowladeed, haddana gumaysiga wuxuu la yimid cadaadis dhaqaale, mid dhaqameed iyo mid diin. dadka reer Barawe waxay waayeen xorriyadoodii, waxaana laga hor istaagay inay si buuxda u maamulaan noloshooda. si kastaba ha ahaatee, dadka magaalada ma aysan harin, waxay bilaabeen kacdoon iyo iska caabin dhanka diinta iyo dhaqanka ah, iyadoo culummada iyo odayaasha magaalada ay door weyn ka qaateen ilaalinta aqoonsiga iyo diinta Islaamka. markii uu bilaabmay halgankii gobonnimo doonka Soomaaliyeed, Barawe waxay ahayd mid ka mid ah meelihii ay ka dhaceen shirar iyo dadaallo lagu rabo in lagu soo afjaro gumaysiga. ugu dambayn, markii ay Soomaaliya xorowday 1960kii, Barawe waxay si buuxda ugu soo noqotay gacanta ummadda Soomaaliyeed. maanta Barawe waxay sii sidaa xusuusta halgankii gumaysi diidka iyo qiimaha ay leedahay xorriyadda, waana magaalo leh xushmad iyo xusuus lagu faano. taariikhda Barawe maaha keliya mid lagu xusuusto buugaagta, waa dhaxal nool oo ku dhex nool dadka, dhismayaasha iyo dhaqanka weli la haysto. waana xusuusaha ka taagan xeebaha Soomaaliya. Barawe waa tusaale cad oo muujinaysa sida Soomaalidu ay u lahaayeen taariikho qoto dheer, xiriir caalami ah, xuduud diimeed oo awood leh. in la ilaawo Barawena waa in la iloobo qayb muhiim ah oo ka mid ah nafta Soomaalinimada.
haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar sabskraibna dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheergaranaya muuqaalkan mahadsanid.